السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما wax ka salaamaya halkan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi waxaan ka hadlayaa Xasan Sheikh oo Mareykan markuu tagayna aynu arkaynay inuu soo dhaweeyay calankii Soomaaliya isagoo aan meesha oolin oo wuxuu matalayay wax ka socodsoona aan laqo isagoo madaxweynaha Kenya la fadhiyay arkayna calanka Kenya kale saaran yahay meesha isaga kiisina ka maqan yahay. marka waxaan leeyahay Xasan Sheikhow waxa balaadin mutacalina waan hayo macallin baan ahaan jiray dad shicibka dhulkooda iska jooga waa yaqaan wax kasta oo wax walba garanaya qiimaha uu leeyahay calanka Soomaaliyeed ama maxay ahayd matalaada dadweynaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ma nin shicib iska soconaya wata ma aha nin dal iyo qaran matala oo calan leh sidee lagu garanaya waxa tahay calankaaga meesha oo taas waxay cadeynaysaa qiimaha aad joogto horta dadweynaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dhulka la gashay waayo matalaadoodu meesha waa ka maqanta Soomaaliya oo dhan ba qiimaheedii dhacay adigaana u sabab dawladda dal waxa lagu aqoonsadaa soo calanka ma madaxweyne dhan oo matalaya dal oo calankiisa aan meesha oolin micnaheedu waxa weeyaan wax jira ma runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado waxyaabaad aad ku dhaqmaysa waana siday ku arkeen dhaqankan lagugula dhaqmayo waa siday ku arkeen waxaa la yidhi lix walba shilalka isdhigta lagu qala halkii hore lagugu bartay inbaa taaganta wax aqoona iyo wax ilbaxnimo ku kordhayna ma jiraan lixdaa bilood ummaddii Soomaaliyeed dhulka la gashay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxa kan oo kale wax la arkay maaha waxaa dowladda calanka ka jirta maynu arag dowladda calankeedii madaxweynaha waddanka la tegay calankiisa meesha ka maqan yahay taasi waxay cadeynaysaa inay ujeedadu tahay wax jira maaha waxan ummadda Soomaaliyeed wax jira weeyaan dalkuna waa dal jira laakiin ninkii matalaya wuxuu noqday waxaan jirin aad baan uga xanahay waxaan ku leeyahay sidaas ku bedel calankaaga meesha aan la soo dhigin waa inaad ka kacdaa waayo waxaad ka socoto lama yaqaan waxaad tahay toona intaa ka bacdi waxaan ka hadlayaa magaalada Muqdisho oo dadka shicibka qaylinaya cashuurta waa lagu kordhiyay waqtiyadan shaqaysan jirnay waa naloo diiday amaankayga waa khatar ku jira waxaan leeyahay waa kaa dalbanaysaan rabteen waa sidii aad doonayseen maxaad u hadli weydeen markii u qaylin weydeen hore oo oran weydeen dowladdan waa dowlad noo wanaagsan anaga rabna naloo daayo soo taa wada qaylinaysen hana la dhaafo iyo hana la sameeyo intiina badan in yar moojaan halkii aad doonayseen baa maanta laydin dhiga marka waxaan leeyahay dee nukaale meel hedingiisa nukaale waa taala haydeene Xasan Sheikh waa kaasi badweynta idinku tuura badweynta idinku rubi magacii midna male muunatoona wax dowladnimo la yiraahdo dowladnimo la yiraahdo iyo wax shaqo la yiraahdo socdaana ma jirto wayna arkayna waddankii wuxuu noqday maxay ahayd doon bilaajiyeeya wadooyihii waagi hore laga sheekeyn jiray loo jiray dhinaca waddanka socoto way socdaan dalkii wuxuu noqday doon bilaajiyeeya dee wixii baarlamaanka sheeganaya waxaan leeyahay
halka ayagaa dalka dhigay dalka meeluu jiheeyey dalka waa bila jihe waddanka meeluu haloo jiheeyey waxaa la xukumaa bay dadkani maqleen waxaa la xukumaa madaxweyne la noqdaa ana madaxweyne noqonaya sida xasan xaali khayr ana madaxweyne noqonaya anaa xukumaya waa siyaasaddu waa barasho waa la bartaa siyaasaddu waa barasho farmaajo jaacadu uga soo baxay baan maqla waa barta marka waa fashilantiin waxa kan deesada laguma xukumo ummadda soomaaliyeed meel kaga dhicina haddii kan geel la raacay ana madaxweyne noqonaya xukumaya wax waa mushkilad weeye waxaad samaysaan soo barta horta siyaasadda markaad siyaasadda soo barataan tii kaalaya meesha madax xukunka kaalaya dii kale ceebtaasoo kala dhacaysa iyo fashilaadaas iyo foolxumada xasan sheekh wado